garoonka diyaaradaha caasimada Hargeysa waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay Maxamed Biixi Yunis oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani horena u ahaa wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaa soo dhaweynta ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Xaaji Cali Xasan Muunir Axmed Cigaal oo kaaliyaha gaarka dhinaca warbaahinta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa goortii ka hadlay soo dhaweynta loo sameeyay Maxamed Biixi Yunis wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland kana mid ah xisbiga mucaaradka wadani mas'uuliyiinta ugu waaweyn waxa maxamed biixi socdaalkiisu lugtiisa ugu weynaahay xaflad ballaaran oo saad ku aragteenba social media bari ka qabsan doonta magaalada Hargeysa oo siyaasiyiin tiradoodu dhowr iyo 10 kor u dhaaftay oo hal doorkii magaalada Hargeysa ay ku soo biirayaan maxamedna uu ka mid ahaa dadkii hawsha aadka uga qayb qaatay Maxamed Biixi Yunis waxa uu sheegay Hargeysa inuu yimid inuu ka qayb galo munaasabad ballaaran oo maalinta Britoola qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland ku biiri doonaan xisbiga mucaaradka wadani sida uu sheegay Munir aan u yimid Brito inaan ka qayb galo xaflad aad iyo aad u ballaaran oo hal doorkii magaalada Hargeysa iyo regionkeeduba ay Brito ku soo biirayaan xisbiga wadani taasoo aan hormood ka ahaa hawsheedan aan muddo ku jirnay taasoo aad iyo aad u jeclaan dadka aad iyo aad ugu soo dhaweeyno waxa kale oo ku maqnaa hawla xisbiga uu leeyahay of course inta badan Addis joogay waxaan jecelahay inaan gabi ahaantiin wada salaamo shacbiga reer Soomaaliland salaamo ku yariyo ku weynba ilaahayna uga baryo abaaraha iyo dhibaatooyinkeena ina soo maray ilaahay inuu naga dul qaado ilaahayna inoo fududeeyo dhibta ummadda haysata Maxamed Biixi Yunis waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay qaataan kaarka codeynta doorashada isagoo sheegay dalka inuu baahan yahay isbedel waxaanu yiri waxaan jecel oo kale inaan ilaahdo dabcan waxa inaga dhaxeeyo tartan عزابته waxaan kula talin lahaa gabi ahaantoodin hadalka turxaanta la iska ilaaliyo in tartan xalaala oo nadiif ah oo bulshadu jeclaysato loo tartamo nin kasta maalinta doorashadu tahay uu ka soo qayb galo dadkuna inay kaarkooda qaataan oo ay ka qayb galaan oo muujiyaan inay maanta gacantooda ku cilbixi karaan waxaan ilaahay ka baryaano si fiican doorashadaas inoogu dhacdo oo nabada insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa isbedel khayr leh inaan idin keeno ma odayaashii ugu waaweyn baan ahay ayatolaheedaan ahay waxaan ahay dadka ugu miisaan weyn marka imika xisbiga hawlihiisu baan ku maqnaa safarka Maxamed Biixi Yunisna waxa ku welinaya aqoon Cabdixakiin oo isna maalinta Britoola ku biiri doona xisbiga mucaaradka wadani isna dareenkiisa ayuu ku hadlay sababtan xisbigan waadina waxa weeyaan waxaan u arkaa Soomaaliland inuu baahantahay in la badbaadiyo wixii hadalay intaasna aroorteenu sarkisha diblomaasiga sare Maxamed Biixi Yunis wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland imikana kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga mucaaradka wadani waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya